in ka badan 150 oday dhaqameed oo ka tirsan odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ayaa maalmiin la soo dhaafay iska diiwaan galiyay xarumaha al-shabaab ee gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. odayaashan oo soo xuray xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya halka qaarkoodna ay soo xuleen ergadii xildhibaanada dooratay ayaa fuliyay amar iyo digniin al-shabaab ka soo baxay 15 bishan taas oo ahayd in 45 cisho gudahood iska diiwaan galiyaan xarumaha al-shabaab. idaacadda kulmiye ayaa ogaatay in odayaashan ay ka baxeen deegaanada koonfur galbeed, Jubbaland, Hirshabeelle iyo deegaano aan badnayn oo ka tirsan gobolada Mudug iyo Galgaduud ee Galmudug. al-shabaab ayaa odayaashan ku qaabilay gobolada Jubbada Dhexe iyo Gado, gaar ahaan degmooyinka Jilib, Bu'aale iyo deegaanka Ceelcado oo ka tirsan gobolka Gado. sidoo kale al-shabaab ayaa odayaasha qaarkood waxay ku qaabileen degmada Xaradheere ee gobolka Mudug sida ay noo sheegeen dadka deegaanka iyo saraakiisha ammaanka Soomaaliya. qof ka mid ah dadka ku nool gobolka Gado oo aan qarin magaciisa ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in odayaasha ugu badan ee gobolkaasi ka baxeen degmooyinka Baardheer iyo Garbaharey isla markaana ay qaarkood dhowr cisho kadib ay dib u soo laabteen. walaal tiradoodu waa 42 odayaal dhaqameed ayna mataqaanaa tageen goobo badan oo al-shabaab ay ku sugan yihiin oo ka mid tahay Bu'aale sidoo kale waxay tageen deegaanka la yiraahdo Warguduud sidoo kale waxay tageen Alcadde odayaasha qaar ka mid ah soo noqday qaarna wali waa jiraan. mid ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo ka mid ah dadkii al-shabaab u tagay oo diiday inaan adeegsano magaciisa iyo codkiisa ayaa keenan u sheegay in laga dalbaday toobakeen iyo inay cafis weydiistaan hogaamiyaasha al-shabaab. nabadoonka aan la hadalna ayaa noo sheegay in lagu wargeliyay in la cafiyay waxaana looga digay inuusan mar dambe ka mid noqonin odayaasha dhaqanka ee soo xulaya baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale inaan lagu arkin guud ahaan arrimaha siyaasadda dalka. taliyaha ciidamada booliiska koonfur galbeed Janaal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa warbaahinta u sheegay in odayaasha dhaqanka ee ka baxay deegaanada koonfur galbeed ay markoodii hore ay ahaayeen al-shabaab isla markaana aysan dib ugu soo laaban karin deegaanada maamulkaasi haddii ay soo laabtaanna waxa uu sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan. arrinka ayaga ah dadka ogolaaday dadna waa diideen waa loo yeeray dadna waa ogolaadeen oo waa tageen kuwii ogolaaday waa shabaab oo gacan saar la leeyahay xitaa maaha waa shabaab adoo joogtid bay dhaba gudaheeda ama degmo ka mid ah oo dawladda gacanta ku hayso oo degan oo nabad qabtid yaa baadiye niman burcada kaaga yeereen meeshii baad aaday xukunkoodii baad ogolaad shabaab baad tahay magaalada bay dhaba ku soo noqon maysid tuuladii kale aad ka baxday in ku soo noqon maysid waa lagu sugayaa dhibaatadii ay shabaab ku geysteen mid la eg ama ka sii weyn annagana ku geysanayna tanna go'aankeeda waa la isku raacay waa lagu heshiiyay inuu shabaab yahaana loo aqoonsaday taasuna macnaheedu waa saas. xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan guddiga amniga ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab aysan dhaafin odayaasha dhaqanka iyo cid kasta haddii ay u tagaan iyo haddii aysan u taginba. xildhibaan Jeesow ayaa odayaasha dhaqanka aan weli iska diiwaan gelin xarumaha al-shabaab ugu baaqay inay ka baaqsadaan arrintaas. odayaasha waxay dhaxda u xirteen in qaran Soomaaliyeed ay yegleelaan in muwaadinimo ayaa jirkooda ka muuqata waxa lagu dilaayeen waa maxad muwaadin u tahay waa Soomaali maxad u tahay aniga waxaan leeyahay adayg hala sameeyo dalkan dagaal oo ku jira shabaab awoodii way ka dhamaatay waxay ku soo koomeen inay dadka wacaan oo ay dhahaan ima waa lagu cafinaa walaalahayga ama argaha ahaadaan ama oday dhaqan ha ahaadaan waxaan ugu baaqayaa marnaba yay laqin shabaab waa ku cafinayaa ima waa iyir ana arintaas waa ka soo horjeeda. mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha ammaanka Soomaaliya oo ay la xiriirtay idaacadda kulmiye si arrintan wax uga weydiiso ayaa qaarkood waxaan ka soo xiganaynaa kama hadli karno arrintan sababta oo ah odayaasha ma dhihi karno u taga al-shabaab sidoo kale ma dhihi karno ha u tagina sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa in aad dad kale ka wareysato. in al-shabaab ay canshuur ka qaadaan xarumaha ganacsi ee ku yaala magaalada Muqdisho sidoo kalena ay awaamirtooda ka shaqeyso gobolada dalka waa fariin muujinaysa in weli ay jirto khatarta al-shabaab. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ilaa hadda kama aysan hadlin amarka al-shabaab waana su'aal dad badan ku taagan sababta ay dowladda uga aamusta arrintan. dadka qaar waxay qabaan inaysan dowladda arrintan waxba ka gelin waana sababta keentay inay ka aamusto go'aanka al-shabaab.